aragnimo hore umaynu garanayn in raasigan ilaahay inoo dhigay naga hayo ciida iyo dhibaato oo dhan uu naga hayo laakiin waxa la ogaaday in raasigii ciidii ay maraakiibtii joojinayso oo ta ku dhacdo ciidda ku dhacdo raasigu lagu guray lagu buuxinayo dadku buuxinaya marka ku qaadanaya wuxuu geenayaa xaggii maraakiibtu istaagaya marka dhibaato ma haysano qalabkii lagu guriyay ciidda marka khibrad badan oo laga helay kadib ayaa horta loo joojiyay raasigaas markii la ogaaday inay faa'iido inoo ahayd laakiin imika la ogaaday inaanay wax faa'iido lahayn oo khibradda farsamada naga maqneed hore wadan curdinayna noo waxyaabo badan baa kullay technically ahaan nooga maqnaa laakiin tiibu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaatay iyo cabashadii uu arkay saas baa lagu laalay wasaaraddu ku joojisay qodob kale ayna khilaaf golaha deegaanka iyo wasaaradda soo kala dhex galayo waxa weeyaan wixii shaqo ah horta meel aan shaqo socon khilaaf ma socoto wasaaradda hawlaha guud waxay mandate u leedahay cidna uga barimayso cidna negotiation kala gelimayso waxay xaq u leedahay weerarsanaysaa waana helaysaa wuxuu sharcigu siiyay sharciga cid walba ka sareeya waayo balantii xisbiga kulmiye uu laawaca sareynta sharciga ayay inoo balantii un baa la oofinayaa waxa jirta mandate-kii awal waxay ahayd dawladda hoose waxay isku lahayd wixii iyadu ay samaysatun bay ahayd howlaha guud roolkoodii may qaadan oo waxa ka mid ahaa imika qorsheynta way sameeyaan laakiin waxay u sameeyaan beer oo wado intaasoo kilomitir oo toos ah oo master plan-ku 5 kilomitir buu ugu talagalay in mar qura la qaado waynu ognahayo dalkeena waxaynu ka dhareegsanahay ingiriiskii iyo dawladdii siyaad bare iskuuladii ay dhistay garoomadii ay danta guud garoomadii wali kuwii baa jira imika malaa dhowr midhow masalaha uu barigii jicirga tagay wali ma hayno wax garoomo oo kala ilaa magaaladiina waxay maraysaa wadogtiina guriga u dambeeya marka laga qaado ilaa halka u sheeysa 5 kilomitir lagu talagalay qorshaha waxayna maraysaa ilaa Baleygoodle oo kuwii xabadda isla dhacay golaha deegaanka halkan awaarsay gaadhay waxaasina ma noqonayso qorshe sharciga waafaqsan wana sharci daro xaqiiqatan marka sharciga loo eegayo marka waxaan la soo noqonaynaa oo boorka ka jafaynaa wixii aan xaq u lahayn naga maqnaa dawladda hoosena waxay xaq u leedahay cid u tagaysa iyo cid kula hadlaysa ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim oo maasantay Faisal runtii wax kasta wixii sharcigu baa horta muhiim ah madaxweynuhu burin karaa wasiiru burin karaa sharciyan warqadda dadka hadii la siiyo horta siinayo iib baa kala duwan iib badana dadku markuu iib yahay buu hanti geliyaa qof laakiin waxaan ku siiyay lacagta iyaga gashay kulay waad garanaysaa oo waxa weeyaan laakiin hadii ay jirto waa qasab dawladdu inay wixii ka soo baxaba u balaadho u dhabar dhigto